fiid wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka idaacadda Risaale caawana kuwada ugu waaweyn waxaa ka mid ah dowladda Itoobiya oo casuumad rasmi ah u fidisay madaxweynaha maamulka Somaliland faahfaahin ka soo baxay qarax qasaare geystay maanta ka dhacay wadada warshadaha ganacsatada Soomaaliyeed ee jaadka oo ku dhawaaqay inay joojiyeen qaadka ka keeni jireen gudaha dalka Kenya madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ku dhaliilay dowladda madaxweyne Farmaajo caburinta siyaasiyiinta iyo warbaahinta dalka shirkadda Baktorama soo bandhigtay dhulbadeed sahmin shidaal ay ka sameysay baaritaanka baarlamaanka dalka Kenya oo su'aalo weydiiyay wasiirka arrimaha dibadda dalkaas xilli haweeneydaas ay ku soo wajahneen magaalada Muqdisho Mareykanka oo beeniyay in al-shabaab askar kaga dileen gobolka Shabeellaha Hoose saraakiil ka tirsan booliiska tababar dhanka xuquuqda aadanaha ku saabsan maanta loogu furay magaalada Muqdisho xilli ciidanka ay dilal barar u geysay dadka shacabka saraakiil ka tirsan militariga amisom tababar loogu soo xiray Muqdisho ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan oo sheegay in dalkiisa uu ka argoosan doono Hindiya waa haddii ay soo qaado talaabo militari iyo qaramada midoobo ka walaacsan xaaladda dadka rayidka ee isku dayay inay ka cararaan dalka Syria warshada isbuunyada Shaakir tayo iyo taabagal weeye markale fiid wanaagsan waa 19 bisha 2019 waa arbaco waa talaado arbaco ay soo galayso u diyaar garooba wararkaas oo dhan dowladda Itoobiya ayaa la sheegay in casuumad rasmi ay u fidisay madaxweynaha maamulka Somaliland kaas oo lagu casuumay dalkaas Itoobiya oo uu tagayo markii ugu horeysay tan iyo markii isbedel ay ka dhaceen dalkaas Itoobiya madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maalinta bariya ku sii jeeda magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya sida ay xaqiijiyeen warbaahinta maamulka Somaliland Muuse Biixi ayaa martiqaad ka helay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed waxaana la sheegay in kulan gaar ah wada tashi uu la qaadan doono booqashada madaxweynaha maamulka Somaliland ayaa noqon doonta tii ugu horeysay uu ku tago Addis Ababa tan iyo markii talada uu la wareegay Abiy Ahmed oo ay dalka Itoobiya ay ka dhaceen isbedelo waaweyn xiriirka maamulka Somaliland iyo Itoobiya ayaa ahaa mid wanaagsan 10 sano ee ugu dambeeyay inkastoo isbedeladii ugu dambeeyay Itoobiya ka dhacay taasoo hoos u dhigtay xiriirka u dhaxeeyay labada dhinac Itoobiya ayaa si gaar ah waxay ula macaamishaa maamulada Somaliland iyo waliba Puntland waxaana wakiilo Itoobiya u joogaan magaalooyinka Hargeysa iyo Garowe kuwaas oo u dhigma qunsul ahaan wararka kale waxaa ka mid ah warar dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax qasaare geystay oo ka dhacay wadada warshadaha qaraxyaa ka dhacay wadada warshadaha ee magaalada Muqdisho oo wada si weyn ay u isticmaalaan gaadiidka biyalka qarax ayaa lala eegtay gaari Cabdibilaah oo ay wateen ciidan ka tirsan militariga Soomaaliya oo marayay kasoo horjeedka xarunta warshada biyaha Caafi qaraxa ayaana laga maqlay xaafado badan oo ka mid ah degmada Yaaqshiid koobjoogayaasha ayaa inoo sheegay in qaraxa uu dhacay kadib markii meesha ay ka gudbeen gaadiidkii lala bartilmaameedsanayay wuxuuna qasaaraha ugu badan qaraxa uu gaarsay dad shacab oo xilliga hareeraha laamiga lugeynayay inta loogeey 3 qof ayaa ku dhaawacantay kuwaas oo lala cararay goobo caafimaad qaraxa kadib ciidamadii bartilmaameedka ayaa rasaas dhowr jiha ah u riday ayaduna rasaasaas ay ku kala eriyeen dadka ka agdhow goobta qaraxu ka dhacay al-shabaab ayaa inta badan wadooyinka dhaca duleedka Muqdisho kuwaas miinooyin ay ku bartilmaameedsanayeen gawaarida ay wataan ciidanka dowladda iyo waliba shaqaalaha u shaqeeya xafiisyada dowladda ganacsatada Soomaaliyeed ee jaadka ayaa ku dhawaaqday maanta inay joojiyeen qaadka ka keeni jireen gudaha dalka Kenya Faisal Cabdilaahi ganacsatada Soomaaliyeed ee qaadka ka keeni jiray dalka Kenya ayaa gabi ahaanba ku dhawaaqay maanta inay joojiyeen oo maanta ay ugu dambeysay qaadkii uga imaan jiray dalkaasi Kenya hadalkan ayaa jawaab waxa uu yahay hadal goodis ah oo ka soo yeeray guddiga qaadka dalka Kenya oo sheegay inay joojinayaan qaadka ay u dhoofiyaan Soomaaliya balse taasi bedelkeeda waxaa maanta si rasmi ah uga dhabeeyay arrintaasi ganacsatada Soomaaliyeed ee qaadka ka keeni jirtay dalka Kenya
gudoomiyaha guddiga ganacsatada jaadleyda Soomaaliyeed Qooje Maxamuud Qayliye ayaa ku dhawaaqay gabi ahaanba inay joojiyeen qaadkaasi waxaana uu sheegay inay door bideen difaaca qarankooda wuxuu sheegay inay marka horeba dhib ku qabeen qaadka Kenya uga imaan jiray oo dhaqaale badan uu kaga bixi jiray balse haddii ganacsatada qaadka Kenya ay ku hanjabeen inay joojinayaan qaadka kuwa Soomaalida maanta ay ku dhawaaqeen inayba joojiyeen suuqii ganacsiga qaadka ee Nairobi haddana ay u wareejiyeen dalka Ethiopia oo qaadka ay ka keensanayaan badan uu loo geysto dhaqaalaha uu la degay waa niman jooga maaragtay miira maaragtay mawa ay shal qabteen waxay yiraahdeen qaadka waa joojinayna qarnimadooda ku bedelayno waxa weeye marka waa wixii way xasuusiyeen macnaha inaan markaan u baahanahay inaan iska joojino marka sida hadliga qaadka waa iska joojinaynaa waxaan helay mid ka fudud oo qudaartayada iyo kalluunkayada iyo magarata ugu bedelay saas hadligeed kan waqtigiisii waa dhacay teemkiisii waa dhacay eeshiisa ha u dhaafeen ayaga og meeshay geynayaan ayagu hadday ciidooda dareen ka baxsan waxa weeye waxay noqonaysaa hawl siyaasadeed dowladda iyada aan uga dambaynayn marka sidaa hadligeed waxaan sheegaynaa maanta laga bilaabo qaadka mirowga waa joojinay maadaama ayagu ay joojiyeen annagu aan tallaabada maanta ganacsatada Soomaaliyeed ay ku dhawaaqeen ee ay ku joojiyeen qaadkii uga imaan jiray dalka Kenya ayaa muujinaysa mid ganacsatada Soomaaliyeed ay ku qaateen go'aan adag oo ay ku garab istaageen dalkooda xilli muran dhanka diblomaasiyadda oo u dhaxeeyo dalalka Soomaaliya iyo Kenya madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxa uu ku dhaliilay dowladda uu hogaamiyay madaxweyne Farmaajo caburinta siyaasiyiinta iyo waliba warbaahinta xilli shalay Muqdisho ay cabasho ay ka muujiyeen ama cabashaba ay dhigeen uriyaasha ka shaqeeya warbaahinta kuwaas oo dowladda ku dhaliilayay caburin siyaasadeed Axmed Tifo Xasan ayaa warkana faafahinaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhaliilay madaxda dowladda hadda jirta in ay si aad ah ula dagaalamaan xurriyatul qowlka waxa uu sheegay Xasan Sheekh Maxamuud in siyaasiyiinta iyo warbaahinta ay dowladdu caburisay oo aysan hadli karin isagoo xusay in sidaas aan loo baahnayn waqtigan dowladda ayuu sheegay in waajib ay ka saaran tahay helitaanka xuquuqda dastuuriga ah ee muwaadinka xaqa uu leeyahay xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo wareysi gaar ah siinayay warbaahin la yiraahdo Kalfadhi waxa uu tilmaamay in xurriyadda hadalka ay hadda marayso meeshii ugu xumeed madaxda dowladana ay la wadaageen arrintan diyaarna ay u yihiin in mar kale ay arrintan ay kala sii hadlaan si uu yiri loo yareeyo caburiska dowladda ay ku hayso siyaasiyiinta iyo warbaahinta arrinta guud ahaan xurriyadda hadalka oo suxufiyiinta ay ku jiraan oo siyaasiyiinta ay ku jiraan oo dadka Soomaaliyeed ay ku jiraan runtii maanta dalkeena meel aad u hooseysay joogtaa meel aad iyo aad u hooseyso maanta marka arrintaas dowladda waa ku ciladaysan tahay waana khalad ka jira nidaamka dawliga dhexdiisa haday dowladdu isla qabto iyo shakhsiyaad dowladda ka tirsan haday qabaan wali ma kala garanayno laakiin nidaam fiican ma saxna ma ah dadka Soomaaliyeed xaqay u leeyihiin inay isu tagaan saxaafaddu xaqay u leedahay inay hadasho qaanuun ay leedahay intaba qaanuunkaas ay saxaafadda ay ku dhaqmayso xaqay u leedahay inay hadasho in la caburiyo in la diido in la waxeeyo ma garanayno laakiin xurriyatul qowlki maanta Soomaaliya meel aad u hooseyso jooga wuu hooseeyaa lama hadli karaa la yiraahdo dadka isuma tagi kartiina la yiraahdo muxuu ahay markay isu tagaan waa la kala eriyaa ciidamada loo soo dira sax ma ah dowladda waa u sheegnay waa kala hadalnay waa u sheegnay maantana waa u sheegnay markalena waa u sheegnay arrintaas arrin la aqbali karo ma laana xuquuqda dastuuriga ee qofka muwaadinka ee Soomaaliga uu leeyahay waaye inuu isu tago oo tashado in laga qaadahay sax ma dowladda waa u sheegnay maantana waa u sheegnay berrina waa u sheegnay arrin oo hadda tanazul inaan ka muujino aan diyaar u nahayna ma arrintaas madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda hogaamiyay xisbi mucaarad ah isagoo kaliya ka maqan kursiga muddo 2 sano waxaana uu dhowr jeer daliil u jeediyay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo hadalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa imaanaya xilli shalay qaar ka mid ah saxafiyiinta Muqdisho ay cabasho ka keeneen xafiisyada warbaahinta ee madaxda dalka waagaag wararka kale ee gudahana waxaa ka mid ah shirkad la yiraahdo Bactrum ayaa soo bandhigtay dhulbadeed sahmin shidaal ay baariso ay ka sameysay
faysal cabdiwarsameeyaha warkana faahfaahinaysa. shirkadda Spectrum oo ah shirkad sameysay shahanka sidaal baarista Soomaaliya ee 7 bishan lagu soo bandhigay magaalada London ee dalka UK ayaa war ka soo saartay sahankii ay sameysay iyo dooda Kenya ay qabtay xilligan. war ka soo baxay shirkadaas ayaa lagu soo bandhigay qariirada badda ee sahanka shidaal baarista laga sameeyay. waxaa kaloo ay beenisay in shirkii London lagu xareeshay xirmooyin kamid ah shidaalka Soomaaliya. shirkadda Spectrum ayaa warkeeda waxa ay ku sheegtay badda in ay sahanka shidaal baarista ku sameysay in aysan ku jirin goobaha ay ku muransan yihiin dalalka Soomaaliya iyo Kenya oo dacwadeeda ay taalo maxkamadda caalamiga ee Hague. waa hagaag waa mahadsantahay Faysal. maraykan warka la xiriira maraykanka intaan gudagalay isla Kenya wararkeeda haddii aan eegnana baarlamaanka dalkaas Kenya ayaa maanta su'aalo weydiinaya wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas Kenya xilli haweeneydaasna ay ku soo wajahneed sida aan xogtan ku helnay magaalada Muqdisho. rijaal cabdi maxamed ayaa war kala dhameystiraya. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa su'aalo laga weydiinayaa waxyaabaha dhaliyay khilaafka diblomaasiyadeed ee ka dhex taagan dalalka Soomaaliya iyo Kenya kadib markii dowladda Kenya ay ku dhawaaqday in safiirkeeda ay kala baxday magaalada Muqdisho sidoo kalena safiirkii Soomaaliya ay ka soo ceyrisay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. guddiga difaaca iyo arrimaha dibadda ee baarlamaanka dalka Kenya ninka gudoomiyaha ka ah Katulo Wamotana ayaa warbaahinta u sheegay inay doonayaan inay wax ka weydiiyaan khilaafka diblomaasiyadeed ee sii xumaanaya ee u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya. wasiirka ayaa laga doonayaa inay soo bandhigto macluumaad sax ah oo sababay in xiriirka labada dal uu xumaado kadib markii arrintaasi falanqeyn dheer ay ku sameeyaan baarlamaankana go'aano hor leh ay sii qaadan doonto dowladda Kenya. sidoo qorshu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya Monica Juma maanta ayaa lagu waday inay soo gaarto magaalada Muqdisho balse su'aalo weydiinta xildhibaanada ayay dib ugu dhacday. Kenya ayaa isku dayaysa in si hoos loo xaliyo khilaafka diblomaasiyadeed ee ka dhex taagan labada dal iyadoo Soomaaliya jawaabta ay bixisay ay qancisay qaar ka mid ah dalalka ku jira urur goboleedka IGAD oo doonaya xilligan in khilaafka la soo afjaro. waxaan naga xasuusinaa wararka la xiriira Kenya iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda su'aalihii maanta baarlamaanka ay weydiiyeen booqashada ay ku soo wajahneed Muqdisho iyo waliba wararka kale la xiriira go'aankii ganacsatada qaadka ku joojiyeen waraysi arrinta la xiriira ay faahfaahin inta ka badanba aad ku maqli doontaan barnaamijka dhacdooyinka ee caawa soo galaya 9:00 insha Allah. wararka kale ee gudaha waxaa ka mid Mareykanka waxa uu beeniyay in askartooda lagu dilay Shabeellaha Hoose. cabdiqaadir jakarta ayaa sii dhameystiraya. dowladda Mareykanka ayaa been abuur waxa ay ku tilmaantay war hore uga soo baxay Al-Shabaab oo ku saabsanaa in 3 ka mid ah askarta ciidamada Mareykanka ay ku dileen garoonka diyaaradaha Baridogle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Al-Shabaab ayaa 15kii bishan sheegay in duqeyn ka geysteen garoonka Baridogle ee gobolka Shabeellaha Hoose saldhig halkaas ay ku leeyihiin ciidamada Mareykanka ay ku geeriyoodeen 3 ka mid ah ciidamada Mareykanka ee ku sugan garoonkaas. afayeenka taliska Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in warkaas uu been abuur yahay isla markaana aysan jirin xitaa dhaawac soo gaaray askarta Mareykanka ee garoonkaas ku sugan. waxa uu xaqiijiyay in duqeyn la beegsaday garoonka laakiin aysan wax khasaaraha ka soo gaarin askarta Mareykanka ee halkaas ku sugan. waxa uu sheegay sidoo kale in dowladda Soomaaliya iyo ciidamada caawinaya ee cadaadis saareen ururka Al-Shabaab sanadkan 2019 isla markaana ay u diideen inay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyaan gudaha Soomaaliya. ciidamada Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya ayaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay ka caawiyaan dhanka la dagaalanka Al-Shabaab iyadoo marar qaarkood duqeyn dharka cirka ka geysta saldhigyo Al-Shabaab ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya. saraakiil ka tirsan booliiska ayaana tababar ku saabsan xuquuqda aadanaha lagu soo xiray magaalada Muqdisho xilli ciidanka booliiska lagu eedeeyo in dilal bareera mararka qaarkii ay u geystaan dadka shacabka. cali xasan cali ayaa warkan la faahfaahinaya. iyadoo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ay tacaddi kula kacaan shacabka ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan wadayaasha mooto bajaajta xilliyada ay xiran yihiin wadooyinka ayaa maanta saraakiil ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya waxaa magaalada Muqdisho looga furay tababar ku saabsan dhowrista xuquuqda bini'aadanka.
taliyaha hogaanka canshuuraha beriga Janaan Cabdullaahi Xasan Bariise oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in tababarkan uu yahay mid saraakiisha lagu barayo xuquuqda insaanka. waxa uu intaa ku daray Janaan Bariise in tababarkan uu socon doono muddo dhowr maalmood ah saraakiishan lagu bari doono qaabka ay ula dhaqmi lahaayeen bulshada. seminar dhowr maalmood socon doona ee ku saabsan dhowrista xuquuqul insaanka. marka aan leenahay xuquuqul islaamka dadka fulinaya ee u dhaxeeya shacabka iyo muxuuha xanaanayntooda iyo muxuuha xaqooda ilaalintooda waa ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo 24 saac bulshada ku dhex jira, bulshada ka soo dhex baxay, bulshadu ay u yihiin aabba iyo hooyo una ahmadiidinka dhabta ah ee naftooda iyo maalkooda inay ilaaliyaan waajib saaran. maadaama ay xaaladdu saas tahay waa laga maarmi waayey mar walba aqoon kororsigu wax badan u taraa. muddooyinkii dambe ayaa magaalada Muqdisho waxaa ciidamo ka mid ah kuwa booliiska ay dilal kala duwan u geysteen dad shacab ah kuwaas oo ugu badan yihiin darawaliinta kaxaysa mootobajaajta. waaga guriyana Cali Xasan oo ku eegaya warbixinta suumaasan yahay isla booliiska haddii aan eegna wararkiisa kale taliye cusub ayaa loo magacaabay taraafikada. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Sareeye Gaas Bashiir Cabdi Maxamed America ayaa maanta waxa uu taliye cusub u magacaabay ciidanka ilaalada wadooyinka magaalada Muqdisho loo yaqaano taraafikada. Jenaraal Maxamed Xuseen Madaale ayaana loo magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka ee taraafikada loo yaqaan caasimada ka shaqeysa. Jenaraal Madaale ayaa waxa uu ka mid ahaa saraakiisha ciidanka booliiska Soomaaliya isagoona hore usoo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid ahayn afyeenka ciidanka booliiska iyo waliba qaybo kale oo laamaha booliisku ka kooban yahay uu ka soo shaqeeyay. warkii fidnimada caaba saaxiib yar waa nagay taas nabadgelyo. midnimo AC and